Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran janaalka Hagarad YouTube meel walba joogtaan soo dhawaada salaan ayaan hawada idin soo marinayaa salaan kadib maanta waxaan qaadanaynaa cashir cusub cashirkaas oo ah mid aad iyo aad u xiiso badan waa rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iidaan insha Allah balse intaanan cashirka u guda gelin waxaan ku xasuusinayaa inaad janaalka subscribe noo saarto iyo like sidoo kalena asxaabta aad u share gareyso si ay wax uga faa'iidaan cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay laba qofood oo midna arday ah labadaba waa arday midna iskuulka hore u joogay midna wuu ku cusub yahay soo wareysi dhexmarayo waa isla sheekeysanayaan waa isla hadlayaan su'aalna isweydiinayaan sidoo kalena cashirka dhamaadkiisa waxaan ku soo qaadan doonaa hal xigmad oo aad iyo aad u qiimo badan waa rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iido insha Allah haddii aan cashirkeena u guda galno hello Ahmed, I am new student, so I need for help. Welcome, brother. I'm ready to help you. Tell me everything you need. I need food, water, and shelter. Hello, Ahmed. Hi, Ahmed. I am new student. Waxaan ahay arday cusub. So I need for help. Marka waxaan u baahanahay caawinaad. Welcome, brother. Soo dhawow walaal. I'm ready to help you. Diyaar ayaan u ahay inaan ku caawiyo. Tell me everything you need. Ii sheeg wax kasta oo aad u baahan tahay. I need food, water, and shelter. Waxaan u baahanahay cunno, biyo, iyo hooy. waayahay haddii aan usoo gudubno cashirkeena qaybtiisii labaad it's ready all things you need. Welcome again my brother. Thanks, but I want to ask you some questions. You can ask me every question I will answer. How many years have you been studying this school? I have been studying this school for 2 years and 6 months. It is ready all things you need. Waa diyaar dhammaan waxaad u baahan tahay. Welcome again. Mar labaad soo dhawow my brother walaal ama walaalkayga. Thanks. Waa mahadsan tahay but laakiin I want to ask you some questions. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aalo. You can ask me. Waad weydiin kartaa. Every question I will answer. Su'aal walba waan ka jawaabi doonaa. inta su'aalihi ayaa ka bilaabanayo. How many years have you been studying this school? Meeqa sano ayaad wax ka baranaysay ama aad wax ka baranaysaa iskuulkan? I have been studying this school. Waxaan wax ka baranayaa ama wax ka dhiganayaa iskuulkan for 2 years and 6 months. 2 sano iyo 6 bilood. I study many subjects such as math, physics, chemistry, biology, English, Arabic, Islamic, history, technology, geography, and computer. Which subject do you good at? I good at Islamic, English, technology. Which subject do you bad at? I bad at scientific subjects. waayahay I study many subjects. Waxaan bartaa maadooyin badan such as sida
mathematics xisaabta, physics iyo physicska, chemistry iyo chemistryga, and biology biologyga, English, Arabic and Islamic, history iyo technology iyo geography and computer iyo computerka. Dhammaan maadooyinkaas ayaan ka bartaa. Which subject do you good at? Maadadeed ku fiican tahay ama maadadeed ku wanaagsan tahay? I good at waxaan ku fiicanahay ama aan ku wanaagsanahay Islamic, maadada tarbiyada, and English iyo maadada Englishka, and technology iyo maadada technologyga. Waayahay, which subject do you bad at? Maadadeed ku xun tahay ama aadan ku fiicnayn? I bad at scientific subjects. Waxaan ku xumahay ama aanan ku wanaagsaneyn maadooyinka scientifiga sida chemistryga, biologyga, xisaabta iyo physicska. Dhammaan marka la isku duubo waxaa la dhahaa scientific. Waayahay, waxaan qaadanaynaa cashirkeennii qaybtii ugu dambeysay. Okay, finally, what would you like to advise Somali students? I would like to advise Somali students to learn something because English proverb says there is no poverty like ignorance and there is no wealth like knowledge. Thank you. Goodbye. Goodbye too. Okay, finally, ugu dambeyntii, what would you like to advise Somali students? Maxaad jeclaan lahayd inaad ku dhiirigeliso ardayda Soomaalida ah? I would like to advise Somali students. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku dhiirigeliyo ardayda Soomaalida ah to learn inay bartaan something wax, because maxaa yeelay English proverb mahmaah Ingiriis ah says waxay dhahday there is no poverty like ignorance. Ma jirto faqiirtinimo la mid ah jaahilnimada. And there is no wealth like knowledge. And sidoo kalena ma jirto hanti la mid ah aqoonta. Thank you. Mahadsantahay. Goodbye. Macsalaama. Goodbye too sidoo kale. Cashirkeennii maanta halkan ayaan ku ekeenaynaa. Intaan ayuunu ku egyahay. Waxaana qaadanaynaa xigmadii aad u qiimaha badneed sidii mar walba cashir haddaan qaadano hal xigmad aan ugu doomari jirnay. Haddana waxaan qaadanaynaa xigmadeena, balse intaan xigmadda qaadan waxaan ku xasuusinayaa mar labaad inaad janaalka subscribe inoo saarto, sidoo kalena ay inoo like garayso, commentina aad ka soo bixiso ereyada cashirka aad ka fahantayna jumlad ahaan inaad inoogu soo qorto. Waa mahadsan tahay. Waayahay, haddaba oraahdeena ama xigmaddeena waxayna leedahay you are lucky if your school friends are still your best friends. Oraahdan ama xigmaddan waxaan ka fahmaynaa dad waa hore iskuul ahaa muddo dheer kadibna yacni wada kulmay haddana waqti wada qaadanayo. You are lucky waxaa tahay mid aad u nasiib badan if you school friends haddii asxaabtaadii iskuulka are still your best friends weli ay yihiin saaxiibadaada wanaagsan. Macnaha qof nasiib badan ayaa tahay haddii ardaydii waa hore aad iskuulka ahaadeen weli aad saaxiibo isku fiican aad tihiin. Cashirkeena maanta halkan ayaan ku ekeenaynaa. Intaan ayaanu kusoo koobaynaa. Dhammaan asxaabta ku xiran janaalka Hagardiid Tube. Tani iyo cashirka xigta sidaa iyo nabadgelyo.